الرحمن الرحيم maanta waxaan laba shir oo isku dhex jira aan la yeelanay qolada ay kaawa ka socoto iyo inagoo ah hay'adda dawlasta rayidka Soomaaliyeed ayaa shir wada yeelanay shirka ugu horeeyay wuxuu ku saabsanaa maadaama shaqaalihii ka shaqeynayay ee Nairobi aan ka soo raray ee u shaqeynayay projectiga Soomaaliya dhamaantood ay noqonayaan shaqaale Soomaaliyeed soo wareegitaankoodii dhinaca mishaaradooda iyo dhammaan in ay ku soo wareegaan completely dawladda Soomaaliya dhinaca administrationka ayaan dhameystirkeeda ayaan ka wada hadlaynay emailada ay marayso waqtiga ugu dambeeyana waa July dhamaadkeeda hadii Ilaahay ka raali noqdo in arrintaas naga soo gabagabowdo number 2 waxa inala joogay maanta oo inoo yimid nagu soo biiray khabiir ay soo dirtay kaawa ay soo dirtay nagala shaqeynaya dib u dhiska civil aviation-ka Soomaaliya marka wuxuu nagala shaqeynayaa in shuruucdii civil aviation-ka in uu nala qoro la dejiyo sida la socotiin burburkii kadib Soomaaliya ma laha shuruucdii loogu talagalay oo idil marka shuruucdii ayaa hadda laga shaqeynayaa waxaan rajaynaynaa mar dhow inay soo gabagaboobaan haddii Ilaahay ka raali noqdo hay'adda ay kaawa nafteeda ayaa gacan inaga siinaysa iyaga ayaa kontraadaasi fulinaya marka expertiga ay soo direen ayaa meeshin yimid oo la shaqeynayo qofkii wadanka Soomaaliya coordinationka uu hayay projectiga managerka oo ahaa Sheekh Jaamac iyo Ahmed Macalin maareeyaha ku xigeenka iyagoo ah ay haddana waxay la kulmayeen dadka ninkaasi si loo dardargeliyo samaynta shuruucdaasi oo aan rajaynayno marka ay dhamaadaan Soomaaliya insha Allah taala inay lahaan doonto civil aviation aanan ka duwaneyn kan Kenya iyo kan Ethiopia ay leeyihiin oo kale iyo wadamada hore u maray dhamaan ay leeyihiin shuruucdaasi waxay noo ogolaan doonaan ama noo fasaxi doonaan dawladda Soomaaliya inay bixin karto diyaarad kasta inay siin karto Soomaaliya ka register garaysan inay register gareyn karto sharcina siin karto pilotyada diyaaradaha ku barta Soomaaliya inay sharci siin karto diyaaradaha lagu hagaajiyo Soomaaliya inay siin karto warqad u ogolaanaysa inay duusho oo adduunka oo dhan laga aqbalsan yahay marka shuruucdaasi oo dhan ayaan hadda ka shaqeynaynaa waa mashruuc aad iyo aad u weyn aanan raqiis ahayn runtii marka aan mashruucyadaasi iska dhameeyno kadib waxaan mari doonaa insha Allah taala in hay'adda ay kaawa intay timaado ay audit nagu sameyn doonto haddii Ilaahay ka raali noqdo marka diyaar garowgii ayaan ku jirnaa khubaradan ay soo dirtay sidoo kale dad badan ayaa shaqaale ah ayaa hadda waxay shaqaale ka shaqeeyay civil aviation-ka ayaa waxay u jiraan tababaro meelo kala duwan oo caalamka ka mid ah iyaga oo dhammaan intan aan ku jirin ay tahay sidii shuruucda looga dejin lahaa sidii dhammaan civil aviation qeybihiisa oo dhan ay noogu soo wareegi lahaayeen loona horumarin lahaa